بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. markuu horeyso madaxweynayaashii hore oo madaxweyne cali mahdi ugu horeeyay, madaxweyne sheekh shariif, madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ra'iisul wasaaraheenna hore professor cali maxamed geedi, gudoomiyaha gobolka, madaxweynaheena hirshabeelle dr maxamed cabdullaahi cabdi waare, gudoomiyaha gobolka, duqa magaalada, xildhibaanada, golaha wasiirada rag ka fadhiyo, wasiirka amniga ducaale ismaan daalo, xildhibaanada labada aqal, duubabka ma hilmaamin, duubabka oo imaamka ugu horeeyo, iyo dhammaan bulshaweynta meeshaan ka soo qayb gashay dhammaantiin. waxaan rabaa inaan maaragtay idin idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa anoo magaciina ku hadlaayo inaan u mahad celiyo walaalihii ka shaqeeyey fadhigan quruxda badan leh, wanaagga badan leh, oo in bilo ah u soo tabliiqinaya sidii hadda noo sheegeen sida uu ku dhici lahaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha qurbaha joogo oo maalin walba soo warramayay, soo qaylinayay, soo tabantaabayay, ganacsatada ka qayb qaadatay, iyo qof walba oo jeclaa shirkaani inuu si mabsuuda uu ku dhaco oo wanaaga oo maamuusa uu ku dhaco. ma aragta waa uga mahad celinaa mu'asasada macalin nuur khaliif cabdiqaadir iyo intii kaloo ka soo qayb gashay gogashaan sharafta loo dhigtay, dhammaantooda u mahad celinaa. marka waxaan u malaynaa haddaan usoo noqdo shirka ajandihiisi iyo waxyaabihii laga rabay iyo danihii laga lahaa inuu walaalkeen brofesorka noo sheegay. waxaan u baahannahay in dadku ay markuu dhibku bato xiskooday kulmiyaan, xooggooday kulmiyaan, taladooday kulmiyaan, inuu shirkan u noqdo albaab bilaaw ah oo ka shaqeeyo midnimada iyo horusocodka iyo horumarinta dhammaan meeshan degaanada ay degantahoo dhan. waxaan rabaa ma aragtay inaan idhaahdo madaxweyne maxamed cabdi waare, quruxda aad tilmaantay oo magaalooyinkaas aad ku tilmaantay raalli kama nihin, qaabka aad tilmaantayna kuma qanacsanin. waxaan isugu nimidna waxay tahay in arrintaas aan wax ka bedelna haddii ilaah yaraa subxaana wa tacaala. waxa arrintaas aan wax uga bedelaynana waa kulanka noocan ah iyo go-aanada muhiimka ah ee ka soo bixi doono oo dhammaanteen aan rabno inaan ka wada shaqeyno. waa inay jirtaa sida uu sheegay walaalkeen gobornatoore cumar, wax dhammaanteen aan ilaaliheen waa inay jirtaa. nin hadda kursi ku fadhiyo oo waxaayo, mid hadda raadinayo iyo mid wax soo qabtaybo, waxaan ilaalinayna waa inay jirtaa. waxaan rabaa inaan qodobadii iyo muhiimaddii laga hadlayay mid ka mida si gaar aan u infisaas gareeyo oo ah in maamul goboleed loo dhiso gobolkani banaadir waa inuu noqdaa waxa uga horeeya ajendaha meeshaan ka soo baxay. soomaaliya goboladeedoo dhan, qabiiladeedoo dhan iyo meel walbay joogaan maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ay fiirsadaan ay leeyihiin. sax waaye gobolka banaadir soomaaliya oo dhan aa degan, laakiin dadka la raba inay liid ka qaataan oo xaqa gobolkaani soo dhiciyaan oo ay raadiyaan oo ay bannaanka u istaagaan idinka waayo. waa run gobolka banaadir waa caasimadda soomaaliya, caasimadda soomaaliyana waa miraayadda soomaaliya. miraayadda soomaaliya oo dhan laga fiirsanayay oo ma laga arkayay xaalka soomaaliya waa gobolka banaadir. gobolka banaadir waa inaan u dhaqaaqnaa inuu helo xuquuqda ka maqan uu raadinayo oo ugu horeyso inay isdoortaan, maamulkooda subsadaan, maamul goboleed ay helaan haddii ilaah yaraahdo. waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta maalin ay ka dhowdahay ma jirto, maalin ay soomaaliya oo dhan ugu heelan tahay in gobolkaani uu helo xuquuqdiisana ma jirto. haddii ay tahay qaar oo xukun hayo, qaar mucaarad ah, gobol haddii ay tahay, meel walbo ay tahay, dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan. maanta waxa ay dareensan yihiin gobolkani banaadir inay jirto xuquuq ka maqan oo qof walba inuu raadiyo la rabo lana siiyo.
anigoo magaciina ku hadlayana waxaan rabaa maanta meeshan inaan aan codsi uga diro oo u sheego madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu ansixiyey 13 xubnood oo ku matalaya gobolka banaadir aqalka sare xeer uu ahaa sharci uu ahaa 2 asbuuc madaxweyne adiga agtaada ayuu yaalaa sharcigaasi waxa uu sugayo waxa ay tahay inaad saxiixdo kaliya guddi annaga xildhibaanadu ay leeyihiin oo qaarkood halkan ay fadhiyaan oo ku yimidna madaxweynuhu waxaad ku tiri intaanan dhuusamareeb aadinaan saxiixa doonaa ilaa iyo hadda ma hayno waxaan u malayn rajaynaa inaad saxiixday haddaadan weli saxiixinna madaxweynuhu sharcigaasi shacabka soomaaliyeed oo dhan oo ku matalaya golaha shacabka ayaa ansixiyey si aqlabiyad loo ansixiyey oo gobolkan inuu ku yeesho aqalka sare lasoo dhisi doono matalaa 13 xubnooda adiga saxiixaaga ayaa maanta u dhiman waxaan rajaynaynaa inaad saxiixaasi madaxweynuhu aan kaa helna haddii ilaah yidhaah waa xasuusin kaliya middaasi waxaan rabaa raalli ah waxaan rabaa inaan u soo laabto xaaladda siyaasadeed maanta la maraayo waxaan u maleynayaa markii warkii lagu qore in la rabo siyaasadda inaan ka hadlo marka waxaan rabaa soomaaliya maanta waxay maraysaa marxalad aad u dhib badan oo xaraj ah waxaad ogtihiin xukuumad inay dhacday oo kalsoonida lagala laabtay si isxilqaana weliba looga qaaday haddana la sugaayo xukuumad kale in la dhiso muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ah oo golaha shacabka iyo aqalka sare iyo madaxweynaha ugu horreeyaanne wakhtigoodii waxaad moodaa inuu aad u soo dhowaanayo uu dhammaanayo oo golaha shacabkan uu ka egyahay 27 Disembar oo sanadkan madaxweynahan ay ugu eg tahay Febraayo 7 Soomaaliya dhibaato badan ay soo martay 20 sano ee la soo dhaafay 5 madaxweyne ayay yeelatay duruufaha hadda la maraayo duruufo ka adagna way soo martay haddana mar walba dadka Soomaaliyeed waxay suubinayeen doorashadu inay waqtigeeda ku dhacday ka shaqeynayeen waxaad ogtihiin madaxweyne Sheekh Shariif 2012 marxalad ka adag ma jirin oo Soomaaliya laga bixinayay ku meel gaarnimada oo dhulka qaarkiis ay haysteen nimankan oo nabadiidka ah oo ka soo horjeeda xog maaragtay dawladnimada haddana duruufta noocaas u adag ayaa waxaa lagu qabtay doorasho lagu qabtay waxaa ogtihiin 2016 iyadoo sidoo kale ah in doorasho lagu qabto waqtigeeda iyadoo duruufo adag la maraayo duruufaha maanta la maraayo kama adka kamana dhib badna duruufahaasi la soo sheegay oo dhan waxaan rabnaa golayaasha oo maaragtay waddanka u dhisan haddii taa golaha shacabka iyo golaha aqalka sarebo baarlamaan walba markuu waqtigiisa dhammaanayo wuxuu jeclaa inuu waqti ku darsado oo iska sii joogo 1 sano ama wax uu sii joogo golaha shacabka aniga aan ka tirsanahay iyo aqalka sare iyo madaxweynaha waxaan rabnaa dadka meeshaan joogo gobolkan degan oo maanta dadkooda ugu badan oo canshuuraha bixinaya ah oo wiilashooda ku dhimanaya ah dawladnimada raadinaya ah iyadoo raggaasi meesha fadhiyo ay rabaan inay sii joogaan ayaa la yidhi ma joogi kartiin qof asaga maanta joogaayo ma jirto haddaan Soomaali isku raacin waxa aan codsanaynana ma ahan wax mustaxiil ah wax dhibaato ah ma ahan colaad ma ahan waxa aan codsanayna waxay tahay dastuurkii iyo sharcigii noo yiilay oo xadidayay golayaashana xadidayay waqtigoodii madaxweynahana xadidayay waqtigiisii aan ilaalino asagaasaana wada deeqo qof walboo Soomaali deeqo nabadda Soomaaliyana deeqo waxaan rabaa meesha anaa uga mahad celiyo xildhibaanada labada aqal ee saaxiibaday ah oo habeen dhaweed casho noo suubiyey guddoomiyaha gobolka aniga ii soo jeediyey in haddii ra'iisul wasaare la suubinayo aan noqdo ninka ku matalaya halkaasi aadaan uga mahad celinaa kalsoonida ay siiyeen oo ku mahad celinaa laakiin waxaan rabaa xukuumad kastoo timaada xataa haddii Cabdiqaadir Cusub ra'iisul wasaare uu ka yahay waxaan rabaa mandateeka hadda yaallo inay doorashada ku qabato
qofkoo doona ha noqdo ruuxii la doona ha la keeno cabdiqaadir cusub la ahaada hadduu doono waxaan rabnaa in la ilaaliyo deganaanshaha iyo hormasocodka iyo siyaasadda waddankaana ay ku soo jirto waxaan rabnaa inay noqoto xukuumad 5 bilood jirta laakiin ka shaqaynaysa inay doorashadii waqtigeeda ay ku dhacdo taasna waxaan rabaa maaragtay inaan uga mahad celiyo saaxiibaday oo arrintaasi dhahay laakiin waxay rabtaa ha noqoto jago kasto iyo masab kasto oo shacabkan Soomaalida aan wax ugu qabanayo oo dadkeena wax ugu qabanayeen mar walba diyaaraan u ahay laakiin ma noqonayso jago igu kalifi karta ama ruux kasto la keeno ku kalifi karta in dastuurka la jabiyo nidaamka la jabiyo wax walba la khilaafadii ilaa yaraado waan idin kaga mahad celinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh